afkaygu ammaantaada u fududaaye afkayguna ammaantaada gacalooy u fududaaye. السلام عليكم أصحاب شرفت لمن والباجوكتان أنت سو تهريبين وحصاب برقيب كميدا أو هذا برامج كنان Soomaaliya markaa joogto waxaa la kulantaa mashruucyo fara badan oo lagu baranayo harqaanka tusaale NGO-ya ayaa waxay sameeyaan dadka waxay baraan harqaanka mashruucaas wuxuu soconaa ama baridaasi isbuuc laba isbuuc bil iyo wixii lamid ah marka uu dhammaado dadkii dhameeyey barashadaas harqaanka waxaa la siiyaa harqaan iyo shahaado sharaf lagu muujinayo inay tahay inay wax soo barteen laakiin dadka qaarkood waxay sameeyaan harqaankii dib ay u gataan noloshoodii meeshii waay sideeda caadi ugu wataan ama aysan dadka Soomaaliya marka ay joogaan harqaanka iyo farsamada gacanta waxay u haystaan wax mataqaanaa laga xishoodo ama wax la yaso ama waxaasi wax la mid ah haddaba adiga hadda Afrika joogo doonayo inaad soo tahriibto iyo wixii la mid ah waxaan ku leeyahay intaad Soomaaliya ka soo taginin walaalkeeyo harqaan sida loo tolo ama farsamadiisa soo baro Yurub markaa imaatid ceermis arkaysiin beesaa ku dhufanaysaa taas Soomaaliya ahayd adiga harqaan la waaye hebelo waaye taas Soomaaliya waaye laakiin inta markay imaato qofka harqaanlaha waa kan ugu fiican ama waa shaqada ugu fudud ama waa shaqada ugu fiican ee dhaqaale laga soo sameyn karo hadda ninka harqaankan iskale luuqaas yaroo fadhiyaa wax dhibaato badan kuma socoto koronto kuma socoto wax kale lama kuma socoto farsamadiisa waaye haddaba Soomaaliya markaa joogtid dirac inaad tolatid markaa arabtid waa iska 2,000 iyo 1,000 ama 500 iyo wixii la mid ah laakiin markaa qurbo joogtid xalimada diracaan gadata ee doonaysa inay maanta aroos aado markay rabto inuu harqaanahan wax u sameeyo kow iyadaa baryootamayso laba waa inay horta jaanis ku heshaa saddex waxa uu ku talaa diraca qofkii la yaqaano $20 lacag u dhigmato oday hebelow markaas 5 dirac tooshid maalintii oo calaa dirac 20 uu yahay adiga beesadaada ma jablo sax bil haddii sii noqotona kaba sii darabo Soomaa Afrika inta lagaaga soo qeeliyo waa dhiibi kartaa sax waxaa jira sidoo kale gabdho Soomaaliyeed oo iyaga marka ay joogaan Afrika oo kale la baro cilaansaarka iyo wixii la mid ah hadda boorarkan wuu jeexmaday boorkan gabadha meesha ku dhagsatay dukaanka sababta ugu dhagsatay waxay tahay xayisiin waxay tiri waxaan aqaanaa sida cilaanka gabdhaha loogu mariyo qofkii rabo lambarkeega iga soo waco lambarkeeda kaasaa waa la waca iyadoo gurigeeda joogto waxaa la eblaayo inaa cilaan ii saartaa rabaa waxaa macquula inayba jaanis ku weyninba waxaa macquulood inay magaalada aad degan tahay magaalo ka fog ay degan tahay ayadoo kuma qasban inay ku imaato adiga u tagaayo markaa u tagtidna $30 $40 $50 camal mataqaanaa cilaanka lagu saaraa guri maysan ijaaranin koronto kuma socoto iyadana canshuur kale kuma socoto farsamadeeda gurigay la fadhisaa ma garat mid kalena wadankan aniga aan joogo mataqaanaa farsamada gacanta gaar ahaan buruska alwaaxda la jaray iyo burus iyo waxyaa samayntaas iyadana dhaqaale kale waaye fuundi waaye hebelo waaye mukuris waaye waxaas dhan adeer Afrika la joogaysaa adeer marka waxaan ku dhihi lahaa intaadan soo tahriibin ka hor adeer farsamada gacanta iga soo dhis farsamada gacanta hadaa iga soo dhisid biriiskaaga qaboob aa ku helaysaa hiriga ma gelaysid gaalada ciyaano ma ku kicinayaan xilliga hartaa masaajidka hadda ninkan masaajidkuu jiraa salaadiisu ku maqan yahan wuu soo tukanayaa buu tartiib oo soo cibaadaysanaa stress la'aan ayuu imaana kadib hawshan hadda gabar aroosaa laga rabay arooskan hadda diyaarinayaa marka cabdow haddaa soo baxaysid harqaan ama tima jarida inkiloobe wayayaay tima jarida adeer nuuci rabaa lagugu jiraa sida isagu raboo darab kuu jiraa waxaa lagaa qaadaa buu adiga lacag $30 oo kale iyadana lagaa qaadaa sida harta dirab ma lagugu jiraa haddii la rabo laakiin meelaha waaweynka oo sida aad rabtid lagugu jirahay waa $50 $60 iyo wixii u dhigmada marka cabdow haddii adiga soo tahriibaysid ama Yurub aad soo
haminaysid adaa farsamada gacanta iga soo fadhiisay xalima caddey intaada soo taariibin ka hor adiga laftirkaaga cilaansaarka iga soo baro imaaw biriiskaagaa ku dhufanaysaa aad iyo aad u mahadsantihiin daawashadiina waa inkaga mahad celinayaa waa miskiinkii waa bidhaamiya been masheega baarqa bannaanka degay oo idin bidhaaminaya waxaa samaysa leedahay markaad soo taariibtiin kadib nabadgelyo afkaygu ammaanta